halkan oo ah xarunta taliska qaybta booliska gobolka Karkaar maanta waxa shir jaraa'id si wada jir ugu qabtay taliyaha saldhigga degmada Qardho iyo taliye ku-xigeenka qaybta booliska waxay kula hadleen warbaahinta ayagoo raali gelin ka bixiya dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Qardho taas oo dhalinyaro lagu soo qabtay ayadoo lagu soo eedeeyay in banaanka magaalada ay xilli dambe oo habeennimo ah ay ku sameynayeen wax anshax xumo ah muuqaalkan oo si weyn baraha bulshada u qabsaday ayaa kalifay in taliska qaybta ay hadlaan isla markaasina ay raali gelin ka bixiyaan wixii dhacay taliska qaybta ayaa sidoo kale sheegay in muuqaalkan ay si ula kac u soo dhigin baraha bulshada laakiin ay jireen dad ku sugan goobta oo si kala u duubtay muuqaalkan isla markaasina ayagoo aan ogeyn baraha bulshada ku faafiyay waalidiintii dhalay caruurtii la soo xiray ayaa ku sugan halkan oo ah taliska qaybta booliska gobolka Karkaar waxaana xilligan la kulansan maamulka gobolka taliska qaybta iyo mas'uuliyiinta laamaha ammaanka waxa si weyn looga wada hadlayaa sida loo xalin lahaa arintii dhacday waa kan taliyaha saldhigga degmada Qardho Cumar Hiirad Kaatun oo warbaahinta la hadlay waxaan rabnaa inaan halakan jawaab yar ka bixino arin social media la isla dhaafayay oo ahayd hawlgal uu soo qabtay ciidanka biliiska degmada Qardho iyo ciidanka qaybta oo iskaashanaya dad dhalinyaro ah oo laga soo qabtay magaalada banaankeeda iyaga oo dab shidanaya muusig tumanaya dadkaas arintoodii oo si kale loo turjumay ayaan waxaan rabnaa inaan jawaab ka bixino isla mar ahaantaana raali gelin ka bixino wixii khalada oo annaga biliis ahaan naga dhacay dadkaasi dad waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah magaalada koonaheeda ayay waxay ka shiteen muusig iyo dab arin in muddo aan ku raad joognay bay arintaasi ahayd haddaan qabanay ka biliis ahaan saldhig iyo qaybtaba annagu waxa weeye xog iyo waraysi iyo clip baan annagu duubanaynay xogta iyo waraysiga iyo clipkan annagu duubanaynay wuxuu ahaa ma uusan ahayn mid aanu ku bahdilayno dhalinyarada aanu meesha ugu tagnay wuxuu ahaa mid aanu cadayn uga dhigayno waalidiintu biri ka maalin markay noo yimaadaan inaanu dhiraahno caruurtiina wax kan baan ku soo qabanay dad kale oo moobilo waaweyn watay oo nala joogay ama askar ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen ayaa kiliiba kala duubtay ka bacdina waxay dhigeen baraha bulshada wax aanu uga jeednay inaanu ku baqdin gelino dhalinyarada waxyaalaha sameynaysa ayaa waxa laga dhigay wax riyaliya oo aanu sameynayno mana ahayn wax riyaliya waxaan marka bulshada gobolka bulshada reer Puntland ama bulshada gobolka Karkaar gaar ahaan kuwa degmada Qardho waxaanu ka raali gelinaynaa clipka sida khaldan u baxay boqolkiiba waanu ka raali gelinaynaa bulshada gobolka Karkaar gaar ahaan kuwa degmada Qardhana waa dadka aan u shaqeyno oo aan u nahay adeegayaasha har iyo habeen u soo jeedno cisigooda iyo sharafkoodana inta in leeyahay inay gaarto raali anagu kama nihin taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Karkaar Jaamac Ismaan Axmed Dalac ayaa sidoo kale ka hadlay madasha waxaana uu sheegay in ku raad jiraan dadkii duubay muuqaaladii la soo dhigay baraha bulshada oo sida uu sheegay ay ayaga bari ka ahaayeen tobadii bisha kowda habeennimo ayaanu qabanay dambiga waxaanu ku qabanay magaalada meel u jirta 20 kilomitir kubaal dhahaa bartanka kubo waanu ku qabanay dadka ugu tagnay dadkaas waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal waxay ahaayeen ummad fara badan oo mujtamaca magaalada ku nool waxay ahaayeen dadka dhalinyarada ah oo labeenta ah oo mustaqbalkoodu bilowday oo dadka ugu wanaagsan bulshada ah oo halka isugu tigi dadkaas meesho ahayd kaymo dhexdood waxa naga fikaday intii badnayd waa naga fikadeen waxaanu qabanay dad dhowr iyo 20 qof ah waxaanu doonaynay inaanu arrinka fawaaxishka ka daba tagno oo boolisku qabtaan oo dambiyada waaweyn oo dhacaya inaanu ka hortagno oo soo afjarno booliska ahayd hawshiisu ma ahayn hawshiyadu inaanu bulshada u gafno dhalinyarada u gafno waalidiinta iyo mujtamaca reer Puntland wax dhibaato ah aanu ku sameeyno halka hadii aanu tagnay boolisku qabanay waxaanu duubnay kilibo recording annaga noo ah waanu doonaynay waalidiinta inaan la wadaagno
waanu doonaynay waxqabadka meesha inaanu wixii aanu qabanaynay inaanu duubno nasiib darro waxaa dhacday kilib baa nala ka dheeg duubay aanan iska hubin oo aanan iska arag kilibkaa ciddii duubtay waanu qaban doonnaa sharcigaannu keeni doonnaa waxaanu bulshada reer Puntland nooc kastoo ay tahay ka raaligelinaynaa kilibkaa sida qaldan u baxay waxaanu u ballan qaadaynaa cid kasta oo kilibkaa duubtay kilibkaan duubanaynaa annaga naga xadday oo baraha bulshada gelisay hadday ciidan tahay iyo hadday shacab tahayba inaan cadaaladda horkeenno soo qaban doonno Yaxya Nuur Muumin